بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي دقالق شرف طلع سيديتهين ما وناكسنتهين الحمد لله أنا قوا وناكسنها إلهي مهديس عاديات بندمانتين بيدين ودا السلام يا وحن الله جمعة مبارك كل حلقة إن شاء الله فيديو صودو بيو وقلب خميس أو جمعة سوق ليو هدي إلهي يرهدو لكن لغيابي inaan maalin kadib ama maaragtay soo galiyo maalin kadib ama laba maalin kadib ama isla caawba inaan soo galiyo waa dhici kartaa marka xilligay ku tahay ba xilli wanaagsan oo khayr qaba Allah kaaga dhigo dhamaanteen ba inooga wada dhigo xilli kasta ku soo gaadhana waxaan kugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa walaalaha sharafta leh ee hadda ii imaaday waxaan la soo dhawaada gacmo furan qalbi furan ku soo dhawaada walaalahayga hore ila joogay dhamaantiin waxaan igaga mahad celinayaa sida quruxda badan aad ila socotaan waadna ku mahadsantihiin dhamaantiin bala joogiina iyo maaragtay ka warhayntiin adiga warhaysaan baa Allah idin barakeeyo waxaa jira walaalo qurux badan oo runtii ila message dhaafa ilaahay waxaan idinkaga baryaa miisaanka xasanaadka Allah idin saaro dhiirigelinta aad siinaysaan sida aad iga maleynaysaan oo wanaagaad ii tuhmaysaan ilaahay waxaan ka baryayaa ka mid ka badan oo ka wanaagsan inuu ilaahay maaragtay iga dhigo idinkana ka iyo mid ka si wanaagsan ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinka dhigo aamin ya Allah inta kadib insha Allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago alaab halkan oo ma sha Allah tabarakallah ayaami hore waxaan dhihi jiray alaab khatar ah wiil walaalkayba wuxuu igu dhahay habeen commentiga igu soo qoray walaal khatar kada khatartu waa wixii maaragtay khatar weeyaan marka waan fahmay kalimadii aniga saan u waday say tahay waa run waa kala labo marka alaab aad u cajiib hadii ilaahay yiraahdaan idin la wadaagaya qof kastaana marsan kara wiil iyo gabadh haddaan iraahno gabdhaha kaliya hays nadiifiyeen wiilasheena ma jirto meel aan uga tagno mana aha wixii wax kiimikaal leh maaha maaragtay oo dadka wax yeelaya marka wiil iyo gabadh baha marsadeen gabadhii xaaji lahay xaajigaaga u samee markaad samaysanaysid wiilkii single ah oo adigu samayso gabadhii single ah inaad samayso alaabtan aad bay u nafaqo badan tahay xaqiiqdii jirkaaga mar walba waxaad gelisid ayuu noqdaa haddaad maaragtay gudaha wax ka cuntid fiican oo healthy ah bannaankay kaaga soo baxaysaa haddana sidaa ay tahay waxaad u baahan tahay madalan dead skin baa jira dabaylaha jira kulayl baa jira qabow baa jira wuxuu u baahan yahay korkiina in maaragtay la iska nadiifiyo marka alaabtan runtii waxay aad ugu macaan tahay samarkoo kale insha Allah anaga mar dhow samar baa noo soo socda hadii ilaahay yiraahdo anu wadadii samarkaanba ku sii soconaa ilaahay idankiisa markaas aad ugu fiican tahay laakiin qabooba xitaa maaragtay waa la marsan karaa ma sha Allah waxay kaloo alaabtan u fiican tahay anigoo kale waxaan ahay dadka haysta dad kale baan ahay oil face ka baan ahay oo markasta wajiga bariga hore wajigan ka dhididi jiray haddaan hadda isdhaqo wajigayga haddana waxa ka soo baxay subag baa ka soo bixi jiray marka saafinana igu dhici jireen alxamdulillah sidii aan hadda alaabtan u bilaabay 3 sano ugu dambeysay xataa waxaan dareemay wajigaygii oilkii saliidii inay ka yaraatay banaanka uga soo baxaysay alxamdulillah rabbil caalamiin waa fadli ilaahay weeyaan alaabtan marka insha Allah waxaan dhihi la isla ogaado marka ugu horeysa waxa sameynaysaa hadii aad markaa bilaabaysid oo tahay dadka maartay sensitive ka tahay waxa sameynaysaa isku midmid isugu tijaabi hal mar ha wada marsanin hadii la haydmo aniga xaqiiq waxaan dadka aad u jirka jilicsan baanahay ee aad wax u dhibaan haddana alaabahan oo kale alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wiilaha heshiisiyay waa fadli rabbi weeyaan marka insha Allah alaabta waxaan aan ka sameynayo ayaan xabad hadii ilaahay idimo idinku kala dhigdhigayaa wanagana yaabay in maarta sawirku marba ka boodboodo xaggan waxaan ku soo diyaarsaday baradhada diirkeeda ama baradhada galkeeda waana baradhada binkiga weeyaan baradhooyinka dhan waa fiican yihiin hadba taad haysatid waa ku samaysan kartaa marka aniga usually waxaan sameeyaa khudaarta kaarootada iyo baradhada galkooda waan ku cunaa markaan cuntada samaysanayo laakiin hadii aan rabo in case inaan shiito kaaroodka diirkiisa oo kale ama maxay ahayd baradhada diirkeeda oo kale maalintaas waan ka goostaa marka 3 xabo oo baradho ah oo aan aad u waaweynayn diirkoodii baan soo qaatay biyaan ku shubtay waxaan ku darayaa hadii Allah uu dala yiraahdo 2 malqacadood oo boorashka aynu karsano oo caadiga ah oo 2 malqacadood iyo waxaan isla shiiday baradhada
baradhada intaa markaan isla shiiday waxaan baaquliga kusoo shubtay saliidii aan hadda ka hor inoo sameeyey oo channelka ku jirta oo aad haddaad dib u baadhaan aad ka helaysaan haddii ilaahay idimo iyo waxaan oo ah 2 malqacadood oo saliidaas ah saliidana magaceeda kaabaa la dhahaa kaaba yani wax kasta way kaabtay markaas maasha allah sawirka xoogaa yara isdaba maray wakaasaa boorashkii waana boorashka caadiga aynu karsano ilaahay idankiisa marka saliidii baan dib ugu noqonayaa saliida 2 malqacadood iyo malqacad malab ah oo malabkana ay malab buu noqon karaa baan kusoo shubtay haddii aadan markaas malab haysana waad iska dayn kartaa haddaad rabtid waxaad ka dhigi kartaa muxuu ahaytoy waxaad ku dari kartaa sonkor timir baad ku dari kartaa saliidoo kale Soomaalidu ku dhihin oil face baan ahay haddana saliid waxba ma yeesho saliidaas alxamdulilah waxaan kaloo markaa ku daraya haddii ilaahay idmo si aan xabadaad u aragtaan malqacad bur ah oo burka cad oo aan lahayn burka cade aan lahayn fixisada lahayn ay burcad waxaan soo oo 2 malqacadood ah iyo 2 malqacadood oo koofi ah iyo 2 malqacadood oo qasil ah oo Soomaaliya laga keenay qasilkii organic ahaa ee saxda ahaa ee markaad qastid dhareerka lahaa weeyaan maasha allah 2 malqacadood oo huruuda iyadana dalkii hooyo ayay iiga timi waliba waxa iiga timi Hargeysa maasha allah tabaarakallah ilaahu wadankeena noo xifti intaas iyo waxaan ku darayaa 1 malqacad oo apple cider vinegar ah iyo waxaan ku darayaa 1 malqacad oo rose water ah marka labadooda dhinacan kamarada dhinacan ay igaga qarsan yihiin markaan dhameeyay baan ogaaday inaana si fiican loo arkaynin hadana marba sawirka laga dhex arkaya hadda waxaan isku qasayaa baradhadii iyo boorashkii iyo malabkii iyo maxay ahayd saliidaasna channelka hoos u raaca runtii dad aan wax ka siiya way ii duceeyeen ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiya yani waa aad u fiican tahay intaasaan isla qasayaa maasha allah tabaarakallah saasaan isu gelinayaa khamiis weeye jimca soo galayo waxaan rabaa cilaankayga iyo maxay tahay cilaan waa marsanahay alxamdulillah laakiin cidiyahaana iyo qurux badnaan saan jecla ahayn cilaan baa ii qasan iyo intaas ayaan dhag isku siinayaa meesha aan ku bilaabayo 2 gacmood musqushaad la tagaysaa saasaad isugu ruugaysaa haddaad wiigii hal mar samaysid oo jirkoo dhan way kugu filantahay laakiin wajiga badanaa waxaa fiican 3 wiigiiba 3 jeer inaad samaysatid baa fiican si aad wajigaaga u ilaalisid laakiin boodiga oo dhan markaa rabtid wiigii hal mar baa kugu filan maasha allah markaa musqusha la tagtid oo saa isugu wada masaajaysid dabo ilaa dacal aad isku masaajaysid waxaa samaynaysaa inta yar ay kugu qallalayso xoogaa haddaad doontid exercise baas ka samaynaysaa musqusha dhexdeeda maxaad samaynaysaa markay kugu yara qallasho ayaa diracaaga ama mara dirac yaroo jirqan waxa uga jeeda dirac duuga ama maartay mara kale oo adiga jeceshahay baad gashanaysaa kabahaaga dacaska ah ee caadiga guriga ku dhex joogtaad xidhanaysaa shaqadaadaad qabsanaysaa shaqadaada markaa qabsatid adiga 30 minute 35 minute 40 minute intii aad adiga jeceshahay baad ku daynaysaa musqushaad tagaysaaye subxaanallah saasaas u soo hoodhinaysaa jirkaaga saas u glowing saa wuxuu dhalaal qurux badan xaadaadu dhalaalaysa kuu samaynayaa maasha allah tabaarakallah wallahi saa markaas u taabatid iska daa qof kale adaa istareemaya jileeca iyo macaanka jirkaaga ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadka markasta haynoo daayaynu isku hagaajinayno marka intaa markaa samaysid haddii uu aniga hadda qiyaasahan aan isku dardarsaday waa intii aniga igu filnayd laakiin haddaa adiga rabtid waxaa samayn kartaa waad kasii badsan kartaa marka ka badsan kartaa daarta qiyaastaada yaqaana waxaana ka dhigay badanaa bariga hore 2 week baan isku qasi jiray laakiin hadda waxaan sir maadaama wuxuu markaa la qaso fiican yahay markaa isku qaso markaa marso markaa saasan sameeyay halkaa mar baan marsanayaa next week oo kalena insha Allah waan marsanayaa marka badanaa dadku waxay sameeyaan jimcaha marsadaan anigu khamiista habeenka jimcuhu soo galayaa marsadaa laana waxa la inaga rabaa cibaadada markasta waa sax inaan wadno haddana waxa la inaga rabaa galabka jimcuhu khamiistu caraabayso ee jimcuhu soo galayo muslimka maalintiisa waxa soo horeysa habeenka inaad sii bilowdid maaragtay ducooyinkii inaad quraan akhriskii sii bilowdid mar walbana waa waajib inaad ducaysatid oo quraanka akhrisatid inaad maaragtay halkaas aad saliga nabiga kaleey salaatu salaam sii badsatid habeenka khamiista ay baxayso aad u sii fariisatid ilaa iyo maaragtay galabka dambe oo sabtidu soo galayso
waa maalintii jimcaha maasha allah sidaasaa dhag layskaga siiya laysugu ruugaa haddaa laakiin dhoo jimcahaan ismarinayaa jimcihiisa goormaan cibaadaysanayaa maalintaas xaqiiqatan maadaama ilaahay maalmaha kale ka fadilay maadaama saacatul ijaaba ku jirto waa inaynu ku dadaalo innaga birthday iyo hebelow iyo laynooma dirsan waxaa laynoo diray maalinta jimcaha inaynu si fiican u cibaadaysano maalin dabaaldeginoo ah maalinta ciidul carafa iyo maalinta ciidka rabadaanka oo ciidul fidriga iyo ciidul adxa iyo maalinta jimcaha baa islaamka iyaga maalmahooda ay saxdo inay dabaaldegaan oo ay maalmaha kale ka duwanaato ay tahay waa maalmahaas marka ilaahay waxaan ka baryaynaa saacatul ijaabada dhammaanteen allah inagu wada kulmiyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal aynu badino maxay ahayd hooy nabigana markii la weydiiyey rasuulka ilaahay asxaabigu weydiiyey wuxuu ku yiri rasuulka ilaahay maadaama saliga nabigu badan yahay kee weeyaan rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay ay ku jiraan ibraahimiyada ay ku jirto suurati kahfi qofkii akhrin karo akhri kii maartay higaadin karo kackicin karona kitaabka soo qaado akhri 2 ajar baad leedahay maadaama aad barbaranaysid halka qofka kale yacni adigaaga barbaranaya 2 ajar baad leedahay haddii aadan akhrin kareynina intaad shidatid cajilada dhammaystiro oo ha kuu dhammaato cajiladii ha kuu dhammaato dhageysigii suuradii ilaahay subxaana watacaala dhammaanteenba xaafidul qur'aan allah inaga wada dhigo kuwa diinta islaamka ee maaragtay seefta iyo dhiigga lagu soo gaarsiiyey raaxada ugu timi kuwa aan dayicin ilaahay subxaana watacaala ha inaga dhigo ee qowlka ilaahay hadalka ilaahay kuwa ku celceliya ilaahay subxaana watacaala ha inaga wada dhigo dhammaanteenba ilaahayna ha idin wada barakeeyo walaalahayga qaaliga ee sharafta leh wax wanaagsan tuhun wanaagsan baad ii samaysaan oo waxaad tirahdaan kaltoon wax wanaagsan baad soo gudbisaa ilaahay waxaan ka baryayaa wax aan anigana i halaajin oo berito recording intuu ii noqdo halkaas markhaati igu noqonin ilaahay subxaana watacaala afkayga kama soo saaro idinkana walaalo wanaagsan oo maaragtay wax iga faa'iido allah idinka dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa sharkayga allah idinka qabto anigana sharkiina allah iga qabto la'aana laguma ducaysan karo qofkaa sharkiisa ilaahay iga qabo adiga laftirkaaga inaad kaaga ilaahay ummadda uga magangashid weeyaan ilaahay awoodiisana iyo qabashadiisa xanuunka badan inuu ka wada marka insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryay ku wax kale faa'iido Allah inaga dhigo laguma xisaabtamo dad badan ibay daawada iyo dad yar ibay daawada laakiin waxa laga xisaabtama oo laga walwalaa oo laga cilkaambiya maxaan gudbiyay waxaan gudbiyay wax akhriya aduun wixii taraya mise wax yeelaya ilaahayna waxaan ka baryayaa mar walba inagoo dhan wax khayr qaban ilaahay inoo weydiinaya subxaanahu wa ta'ala ilaahay dhamaantiin haydan wada xiftiyo walaalahayga qaaliga meel kasta daafaca caalamka joogtaan aafooyinkan xanuunadan dhacaya ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu sahlan oo sakhiran nagu dhaafiyo ilaahay waxaan ka baryayaa intii naga dhimatay Allah u naxariisto inta xanuunsanaysa Allah inoo caafiyo inta caafimaadka qabtana Allah inoo siyaadiyo intaynu mar kale isugu noqon doono fiidiyowgan mid lamid ah haddii Allah uu wadali ka raali noqdo waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh